aan baxo. waxaa laga yaabaa markii aad gaadho madaarka ama xuduudka ugu dhow ee aad ka gelayso waddan in lagu weydiiyo waraaqo yaryar oo kartoon ku duuban. kartoonka yar ayaa noloshaada iyo in aad gashay in lagu diido go'aaminaya. waxaa laga yaabaa macluumaadka ku jira marka laga yimaado in waxa laga sameeyay gebigiisu aan wax badan ahayn ama aan qiimo ugu taagnayn, laakiin macluumaadka ku qoran ee shakhsiyadda ka turjumaya waddankaaga ayaa go'aan ka gaadhaya in aad gasho iyo in kale. waa baasaboorka. kusoo dhawaada podcastiga Cod iyo Caqli xalqadiisii 6. waan maanta ku dul istaagi doonaa baasaboorka iyo ciddii ugu horreysay ee baasaboorka keenta. maxaad isaga taqaanaa baasaboorka iyo sidii uu ku yimi iyo qofkii ugu horreeyay ee qaata? waxaan Yunus Cabdiraxmaan, saxafi aragga naafo ku nool magaalada Hargeysa. in badan oo idin ka mid ama haddii aan dhammaantiin baahayn waxaa laga yaabaa inaad mar uun isweydiiseen horta baasaboorkani muxuu ahaa, halkuu ka yimi, yaa go'aamiyey in la qaato, iyuu se ahaa qofkii ugu horreeyay ee qaatay baasaboorku.